على كان عيرقابه وحين كوجينينا نبض iyadoo aan xabadin dhicin sidaan ku weyno sida wax la isaga celiyana waa naqaana laakiin nabadda aad baan u danaynaa gobolka Sanaag runtii waxa degan beelo badan oo ducayaal badan ku soo wada jeeda waxay ku wada joogaan nabad waxay ku wada degan yihiin nabad calanka maanta halka laga ka taagani calankiisa ee maanta ceergaaba ka taagan colaad kuma iman nabad buu ku yimi keenana insha Allah bismillaahi kariim isaguna wuxuu ku tagi doonaa nabad sigaara waxaan u salaamayaa wafdida uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka SSC Khaatumo ahna madaxweyne kusimaha madaxweynaha iyo wasiirada la socda xildhibaanada baarlamaanka barasaabkii gobolka Sool oo isna halka wafdida la socda barasaabkii gobolka Sanaag agaasimayaasha dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawaada gobolkii Sanaag gaar ahaan degmada Fuqufuliye ahna caasimada ku meel gaarka ee gobolka Sanaag ku soo dhawaada halkani waa caasimadii ku meel gaarka ahayd ee gobolka Sanaag ku soo dhawaada wafdiyay madaxweyne ku soo dhawaad dhul nabada ceergaabo oo nabada Sanaag oo nabada maanta waxay noo tahay runtii faa'iido weyn SSC oo maanta gobolkii Sanaag lagu soo dhaweeyo ka khudbadeyn doonta hadhowna faa'iido weyn bay mar labaad noo tahay caasimada ku meel gaarka ee degmada Fuqufuliye oo ay maanta isugu yimaadeen dhammaan degmooyinka deriska mar labaad idin ku soo dhawaada wafdiyay markaan soo dhaweynta inta kaga tago farxadda inta kaga tago waan idin salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xagan mar labaad waxaan salaamayaa shacab weynahan hortayda fadhina hablahan quruxda badan ee hidiya dhaqanka ee aadka maanta u quruxda badan ee u soo lumistay ee farxadda iyo rayraynta iyo calanka quruxda badan ee ay muddada dheer u oomanayeen uu maanta ka muuqdo idina si gaar ah idin salaamaya oo kale yalla barno farxad bay maanta ii tahay degmadii Fuqufuliye ama caasimada ku meel gaarka oo dadkeedii calankii dadka halka fadhiya qaybtood may arag calan buluuga say u dhasheen waxa laga yaabaa 30 sano 40 sano oo dhow war calan buluuga miyaad aragteen meel uu marayo SSC ka hor miyaad aragteen maanta inana guul bay noo tahay farxad bay noo tahay halkan waxa fadhiya dad badan oo waayeelkoodii walaalahood odayaashoodii qaybna shahiideen qaybna xabsiyada ku jireen laakiin maanta waxay wax walba ku ilaawayaan farxadda iyo calanka buluuga ay maanta xorriyada ku xidhan yihiin runtii quluubiyan baan hadlayaa maanta Fuqufuliye wada calana baan arkaa Fuqufuliye wada faraxsan baan arkaa Fuqufuliye duc wada jeedaan arkaa runtii maanta aad baan anoo faraxsanahay maanta haddaan wax badan khaldo waa dareenka igu jira maanta runtii mudamna madaxweyne ku soo dhawow halkani waa dhulkii runtii madaxweyne ku-xigeenka xildhibaanada halka fadhiya oo ugu horeeyay Maxamed Cawil la'aantood lama heleen in ay maanta halkan maamul daadajin ay ka dhacdo haddaan iyagu joogo runtii lama heleen maanta iyana sharaf weyn bay noota mudane madaxweyne in badan baa lagu cabsi gelinayay oo lagu lahaa gobolka Sanaag lama tagi karo nabadi kuma jirto halkan hadeer wax ciidan xagga inaga xiga ma jiraan waa nabad daraadeed haddaad caawa bannaanka seexatay haddaad xagga hore u socotoba waa nabadgelyo dhulku ku seexda oo ku soo toosa Sanaag wax dhibo ka jiraana ma jiraan wax colaado ka jiraana ma jiraan wax hawlo ka jiraana ma jiraan maanta indhihiina iyo afkiina wax idin goynaya nabadii la lahaa nabad kama jirto gobolka Sanaag maanta xaqiiqdeedii idinka haya dadka gobolka Sanaag runtii waxa degan beelo badan oo ducayaal badan ku soo wada jeeda waxay ku wada joogaan nabad waxay ku wada degan yihiin nabad calanka maanta halka laga ka taagani calankiisa ee maanta ceergaaba ka taagan colaad kuma iman nabad buu ku yimi keenana insha Allah bismillaahi kariim isaguna wuxuu ku tagi doonaa nabad sidoo kale Sanaag maanta ceergaaba joogaan nabadda ugu yimi inta ka harsanna kanina nabad buu ku tagay colaad ku tagi maayo isagoo la soo dhaweynaya xagga waxay naga xiga dad u xiisa qaba calanka dad raba inay u yimaadaan dad fagaaraha taagan oo leeyahay goorma ceergaabo caasimada gobolka Sanaag ee ceergaabo goorma calanka soo gaaraya ma yar xagga naga xiga insha Allah bismillaahi kariim dhawaan baynu tagaynaa inagaan colaad ku tagnaa inuu nabad ku tagaynaa sagara guud ahaan dadka darafka ee hareeraha ee aan wada wadaagtanahay waxaan u haynaa nabad mar labaad waxaan u haynaa nabad mar saddexaadna waxaan u haynaa nabad
dadka reer Sanaag colaadda waxbay ka yaqaanaan nabadana waxbay ka yaqaanaan tan waxaan ku doonaynaa nabad haddaanu ku weyno sida wax la isaga celiyana waa naqaanaa laakiin nabadda aad baan u danaynaa dadkan halka fadhiya runtii marka nabadda laga sheekeeyo waxay aaminayaan in la yeesanayo war miyaa la isdhiibay isma inaan dhiibina wax walba waxaynu ku goosanaynaa nabad calankaana ceergaabo waxaynu ku geynaynaa nabad iyadoo aan xabadin dhicin insha allah bismillaahi kariim mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad baad baanu kugu mahad celinaynaa adiga iyo xukuumadda aad wadatid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka badhasaabka xildhibaanada la taliyaha madaxweynaha agaasimaha nabad sugidda badhasaabada dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhowaada gobolkii Sanaag oo nabada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Fuqufuliye ee aad maanta timaadeen wax dhibo ka jira ma jira horena dhibi ugama jirin hadeerna dhibi kama jirin dadka meelaha ka qaylaya ee yiraahdo hadii Sanaag loo soo dhaqaaqo ama SSC soo gaadho dib baa dhacaysa war anagu wax dhiba ma wadno annana cidna dhib naguma wado annana dhib ma wadno waxaanu cabiraynaa oo SSC cabiraysaa ilaa daba iyo dacal dadkeeda ay la dareentay meel kastoo ay joogto dareenka dadka Sanaag jooga iyo dadka buuhood la joogaana waa isku dareen waana isku dhig waana ku isku dhintay dadka halka jooga maanta Fuqufuliye jooga waa dadkii ka shaale ka soo dagaalamay haddaad maqasheen waa ka shaalo karaashno yimid de karaashada halkan uu ka tagay talada ku darsaday yara dhammaantiin waa yeelka waxgaradka guurtida halka fadhida mid walba meeqaamkiisa ku salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu